ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamij kale oo ka mid ah barnaamijyadii taxanaha taariikhda Soomaalida waxaana barnaamijkii ugu dambeeyay ay inoo joogtay waqtigii ciidamada Soomaalidu ay ka soo laabteen ee lagu soo jabiyay dagaalkii ay Itoobiya la galeen sanadkii 1977 ilaa 78 barnaamijkan waxa weeyaan kii 15aad Itoobiya haddaba markii ay dib u qabsatay dhulka ismaamulka Soomaalida dagaalkii 1977 kadib welina ay ka sii socdeen dagaaladii jabhadeynta ahaa ee dhinaca Soomaalidu wada iyo abaara ka dhacay geyigaasi ayaa keenay qaxooti badan oo boqolaal kun gaaraya oo Soomaali dhalashadoodu ay tahay ay ku soo jabaan dhinacii wadanka Soomaaliya gargaarkii raashinka ahaa ee ay bixinayeen hay-adihii samafalka ee reer galbeedku ayaa kaalin muhiima isagu ka galay dhaqaalihii dalka waxaana si aad la isugu qabtay tiradii qaxootiga Soomaaliya soo galay xilligaasi dawladda Soomaalida waxay iyada tira koobkeedu ahaa in qaxootigu yahay 1,500,000 oo kun oo qof hase ahaatee tirada hay-adaha samafalka ayaa aad uga yaraa u ahaa dad gaaraya 400 oo kun oo qof si kastaba ahaatee waxaa markii dambe la isla ogolaaday 800 oo kun oo qof in raashinka lagu bixiyo dhibaatada qaxootiga ka sokow jabkii militariga Soomaaliya ka soo gaaray dagaalkii 1977 ilaa 78 waxa saameyn xooga oo ku yeeshay siyaasadii gudaha ee Soomaaliya waxa aad u lumay is-aaminaadii waxa xoogaysatay qabyaaladii waxaana lumay tayadii iyo daacadnimadii militariga Soomaalidu oo lahaa waxa markaasi koox militariga Soomaalida ka tirsan ay isku dayeen inay talada la wareegaan kacdoonkaasi oo ay ka dhalatay jabhadii ugu horeysay ee ka hortimaada xukunkii Maxamed Siyaad Barre uu hogaaminayay jabhadaasi sida dhageystayaal haddaba aad ka warqabtaan waxa hoggaankeeda koowaad ahaa Cabdilaahi Yuusuf Axmed madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland inta haddaba aynaan u gelin sababihii iyo sidii ay u abuurantay jabhadii la oran jiray SSDF waxaanu jeclaysanay inaan qadar idinka maqashino taariikhdii nololeed ee Cabdilaahi Yuusuf intii SSDF-tu aanay abuurmin ka hor Cabdilaahi Yuusuf Axmed waxa tababarka sarkaalnimo ee ugu horeeyay uu ku soo qaatay dalka Talyaaniga gobonnimadii Soomaaliya ko waxaanu ka soo shaqeeyay meelo ay ka mid ahaayeen Muqdisho Baydhabo Cadaadley Sheekh iyo Burco hase ahaatee dhacdooyinkii uu goobjoog u ahaa waxa ka mid ahaa afgambigii gobolladii waqooyiga la isaga dayay sanadku markuu ahaa 1961 Cabdilaahi waxa xilligaasi madax isagu ka ahaa ciidamadii fadhiyay magaalada Burco isagoo arrintaasi aadan nuuxdu looga waramayna waxa uu yiri anigoo dhakhtarka ku jiray inta dhakhtarkii ugu yimaadeen bay dhakhtarkii igala baxeen meel bay ugu xireen kulligooda nimanka dhalin yar bay ahaayeen oo runtii aanu saaxiibna wada ahayn aniga run bay ii sheegeen Cabdilaahi Koonga afkooda ku hadlayay 7 sarkaal bay ahaayeen oo ay qaar habeenkii sarkaalnimo soo siiyeen kuwa saan haaris ka soo noqday baa jiray oo ay habeenkii yiraahdeen sarkaalnimada xidigihiini iska xidho oo anqalaab baynu sameeynaa marka adiga run baan ku sheegaynaa anqalaabka saraakiishayada dhalinyarada ee reer waqooyi ayaa sameynay waxaan doonaynaa goboladan waqooyiga inaanu u celino 26 Juun xaaladooda siday ahayd gobollo madax bannaan oo dawlad gaar ah qaatay inaan ka dhigno marka kadibna Soomaaliya inay ka wada hadasho koonfur iyo waqooyi israacoodii maxaa laga yeelay adiga dibeen ku sheegay saas way yiraahdo anigu wallahi hadda waxaan ku yiraahdaa Cabdilaahi Koonga u dhigay saad man saaxiib ah waxaan wax idiin soconaya Soomaaliya idinka yeeli mayso anigu ma hubo hadeer shacabka waqooyi xataa inuu idinka yeelayo niman dhalin yarna waa tihiin ninka dhalinta yarina khaladkiisu waa badan yahay kuriyoon talada ma asiibe khalad bu galaan anigu hadda keligay baana koonfur baa liiga soo bedelay halkan idin la jooga nin kale oo sarkaal oo reer koonfureedina markaa ma joogo oo saddex baanu ahayn oo mid fasax buu qaatay oo mid waa maqan yahay saasay ahaayeen idinkuna inta doontaan noqda anigu idin la talinaya ka joogan in leeyahay waxa ana ballan baan idin qaadayaayo hadaad waxa ka noqotaan saraakiishii Burco joogtay inqalaabkii kama qayb gelin waxna ma xumayn baan cadayn doona way waqsleen waxa yiraahdeen dhageyso inaad khiyaamaysaa doonaysaa imanka waxa ku kaxaynayna gurigaagii baan ku geynaynaa oo ku xirayna gaar baanu ka saarayna halkaas aanu kugu haynayna waxaan doonaynaa markii inqalaabku aanu dhameystiro oo yaani uu najaxo adiga iyo saraakiisha kale ee reer koonfureedka Hargeysa jooga saraakiisha naga jira koonfur aan isku kiin bedelano yaan doonaynaa yiraahdo waxa idin la taliy arigo idin la taliy diideen waxa doontaa yeelaa ku ka waari waa la igu qaaday oo waa la kaxeeyo guriga aan deganaa oo xerada ciidan militariga Burco dhexdeeda ku taal bay igeeyeen markaas gaariga saaray kadibna markii inqalaabkii fashalay ciidamadii waa tii la isku bedelay aniga waxa la isoo bedelay magaalada yiraahdo Baydhabo hadda ciidankii oo dhan baa la raray moogtay ciidan koonfur laga keenay oo waqooyi la dhigay kii koonfur laga qaaday baa amar leysiyo waxa la yiri
kambani waxaa ku reebtaa gaalkacyo kambani waxaa ku reebtaa beledweyn kambani waxaa ku reebtaa muqdisho kambaniga ugu dambeeya la tago baydhaba tag baa layidhi intaa kadib haddaba cabdilaahi yuusuf waxa uu ka qayb galay dagaaladii soomaaliya ee etoobiya dhex maray sanadkii 1964 waxaanu hogaaminayey ciidamadii ka dagaalamayay doolow iyo yeed dagaalkaasi sida cabdilaahi uu noo sheegay waxa uu ku helay dallacaad iyo bilad markii dambena waxa uu waxbarasho milatari u tegey dalkii la odhan jiray midowda sofiyeeti oo ku maqnaa muddo 3 sannadood iyo badha markii haddaba cabdilaahi uu ka soo laabtay dalkii midowda sofiyeeti la odhan jiray waxa uu agaasimaha tababarka u noqday ciidamada soomaaliya intii halkaasi u joogayna waxaa bilaabmay dhaqdhaqaaqii uu ka dhashay afgembigii milatarigu ay ku rideen xukuumaddii rayidka ahayd ee soomaaliya wakhtigaasi ka dhisnayd waxaa la isweydiin karaa haddaba cabdilaahi yuusuf muxuu ka ogaa arrintaasi waana kan isagii oo sheegaya halkaas anigoo jooga yaa maxamed siyaad barre wuxuu bilaabay inqalaabkii dhaqdhaqaaqiisi markaana maxamed ibraahim cigaal waa prime minister cabdirashiidna waa madaxweyne dee kabinoodkeeduna waa dhisay galab goor casara waa jamce buu anoo gurigayga jooga waa January 69 soo gaari wata hodhar carabiya qabo gurigayga igu yimid siyaad barre waa major general waa taliya ciidanka anoo markaa gaashaano dhaxaana traininkaana madax ka ah gaaruu igu qaadayo xeebta magaalada barigeeda magaalada muqdisho barigeedu ilaadayo meel battalion taangisihi deganaa gubadley baa la yidhahaa meesha buu igeeyayo waa isoo celiyo marka soo noqodkii buu hadalka ii bilaabay wuxuu igu yidhi waddankan dowladda maanta joogtaa meel xun bay ku wataa waad og tahay oo maxamed ibraahim cigaal wuxuu iibiyey oo Kenya ka iibiyey NFD siyaasaddan lagu sheegaya ee minor and major problems oo mid qaarba mar baa la xalinaya la leeyahay waxba kala ma aha waxa weeye Kenya loo saabaxay NFD haddaan dawladdan wax laga qabana haddana ogaadeen iyo Soomaali galbeed bay saabaxayaan marka waa inaan wax qalab sameeyno xaasiyaad barre anuu ugu leeyahay saa xirfado badan ka soo saareen anuu ku jiray in ka san ka dhalinyara khudbadihiisa ninkii qori jiray baan maalmaha ciidamada iyo magaciisa waxa aniga iyo cali samatar iyo qori jiray ragii ugu aqoon roonaayo ugu dhalinyara oo magaciisa war college ka soo baxay oo training fiican lahayo baan nahay waxaan ku iri taliye ciidankaynu hadda gacanta ku hayno adigu madaxda noogu tahay ciidan yar oo 12 kun oo nina ciidankana waxaa loo dhisay waxa weeye Soomaaliya haddii ay khatar gasho oo dibadda laga soo hujumo inuu daafaco armay inuu wanaagsan tahay oo Soomaaliyana u wanaagsan tahay inaynu ciidankaas ku mintidno inaynu tiradiisa iyo tayadiisa inta siyaadino ciidan Soomaaliya haddii la soo weeraro daafici kara ka dhigno siyaasadana cidii siyaasad isku haysata waagi inaga leena ka fursan waaya hal gaari anigu ku talilmay anqalaabna in faraha la gal in yarbu inta iga aamusay wuxuu gaariga isaga wada wuxuu igu yiri hada adigu ciidan idinka ahayn inay dalka u talin karta ma aaminsani waan yaabayo waxaan ku yiri anigu reer kala ma hadlin anigu Soomaalina ku la hadlay marka anaga aad sheegaysa yaad aniga igu daraysaa waa anaga waan wuxuu waa idinka Maxamuud Saleeman hatta ma jeerteen ma oran waa idinka waxaan ku iri anigu Soomaalina ku la hadlay marka anigu hadeer reerna wax ka sheegi maayo arrin kale aan ku wadnay laakiin ra'yigayga waan ku sheegaa weela soo cararay gurigayga hortiisa inta idigay buu iga tagay kursi maxamed siyaad barre isqabashadaan isqabanay January 69 galabtaas sheekadaas dhex banay wey maxamed siyaad barre marka anqalaabkii kama tanaasulay waa waday rag badan baan ku diidnay marka oo dhalinyaro ah oo saraakiishi marka dhalinyarada ugu waaweynayda oo groupkayga ah haydiidkii la diri jiray ku jiray nin maxamed nuur baarqab la oran jiray ku jiray cabdulqaadir dheelkii caynaanshay la togtay ku jiray nin xasan gaamuur la yiraahdaa ku jiray niman ugu badnayn waa ragaygi markaas laftiin kanaliska ah marka laga reebo gabayre oo isaga raacay wixiisu iska waqtay oo saraakiil dhalinyaro ah oo aan isaga aqoon oo aan ka hor imaan karin oo meelaha ka soo badbad soo reer waayo badan meelaha markaas unitiskii muqdisho joogay buu u dhiibay sheekayo baxday rag baa waxay gaarsiiyeen arrintii maxamed ibraahim cigaal maxamed ibraahim cigaal Allahu naxariistee wuxuu isku dayay maxamed siyaad barre inuu tababar dheer oo Russia u diro dabeetana markaa kadib inuu pension u diro rakabineed kula jiray baa ku diiday ka horiyay waa hagaag haddii haddaba aynu halkaasi ku hakinaa cabdilaahi yuusuf axmed warkiisa xoogogaalnimada ah oo aynu dib ugu noqono sababtii maxamed siyaad barre uu doonayay inuu ku qanciyo cabdilaahi yuusuf inuu inqilaabka uu ka qayb qaato waxay ahayd in maxamed xaaji ibraahim cigaal uu iibiyey dhulkii NFD la odhan jiray heshiiskii ka dhacay caruusha ee Kenya iyo Soomaaliya barigaasi dhex maray haddii aynu dib u jaleecnana heshiiskaasi xukuumadda cigaal wixii ay doonaysay ama heshiiskaasi ay ku gaadhay waxa BBC-du maxamed ibraahim cigaal ay ka wareysatay isaga oo jooga magaalada Kampala caasimadda waddanka Uganda 16 bishii December sanadkii 1967 waxaana wareystay wariye markaasi ka tirsanaa BBC-da oo la oran jiray
ronald robson waxaana su-aashiisii ay ahayd Your Excellency, your success in winning support for the Somalia-Kenya agreement has been hailed as one of the political feats of the year in Africa. What would you say was the most difficult part of its accomplishment? waxau yidhi mudane guusha aad ku guulaysatay taageero inaad u hesho heshiis dhex mara soomaaliya iyo kenya waxaa si cad loogu ammaanay inay ka mid tahay guulaha siyaasadeed ee ugu waaweyn ee afrika sanadkan ay gaadhay maxaad ku tilmaami kartaa qaybta idinku adkayd si heshiiskaasi ay u gaadhaan maxamed xaaji ibraahim cigaal oo su-aashaasi kagana jawaabayay af ingiriisi iyo af soomaaliba waxa uu yidhi The memorandum of understanding agreed upon at Arusha between Somalia and Kenya provides only for the basis for both countries under the mediation of Zambia to get together over the conference table in order to try and find just solutions to the problems between Kenya and Somalia. I would like to emphasize that so far, apart from resolving minor differences, there has been no discussion as yet on major issues. Memorandum kii Arusha la iskaga afgartay Kenya iyo Soomaaliya iskaga afgartay wuxuuna ahaa asaaskii ama gogoldhigii u gogoldhig ahaa wadahadalkii labada wadan iyo Zambia oo u garsoori ay ku ballameen inay nabad iyo wadahadal arrin wixii khilaafaadahay dhex yiilay inay ku dhamaystaan waxaan doonayaa inaan aad u caddeeyo xoogaha ki yaraay khilaafaadaha mooyaane arrinkii jawharadda ahaa ee la isku hayay weli shaqadiisii lama bilaabin idaaradii saddexda wadan ka koobnayd ee la doonayay in la qabtana waxaan jeclayaa maanta inaan idiin sheego in maantadan dhismaheediina la isku afgartay arrimadii ay ku shaqayn lahayd iyo waxay ay ku shaqayn lahaydna maanta la dhameeyey oo la dhameeyey marka waxaan filayaa in haddaba imika shaqadii arrinkaas la gudageliyaa wuxuu noogu adkaa anagu haddaan reer Soomaaliya nahay waxay ahayd inaanu ka raadino ama ka qancino Jomo Kenyatta inaanu arrinkani naga dhab yahay oo aan nabad wixii mashaakilka naga dhaxeeyay inaan nabad lagu kala garbaxo inaanu doonaynay taana waxay la tahay inaanu ka dhaadhacinay shaqadii arrinka la bilaabay. Is there now complete accord in your parliament and in the Somali Youth League on the need to have friendship with your neighbors? weliye ronald robson waxaa kaleeto sida aad maqlayseen uu cigaal weydiiyey in baarlamaanka soomaalida iyo xisbiga SYL oo talada hayay ay si buuxda isugu raacsan yihiin in saaxiibtinimo lala yeesho deriska allah u naxariistay maxamed xaaji ibraahim cigaal waxa berigaasi isagoo arrintaasi ka jawaabaya oo markaasina haddana af Soomaali isla markiiba ku tarjumaya uu yidhi The Somali National Assembly and the SYL party are in complete accord with the policies of the government in connection with our relations with our neighbors. This was evidenced by the resolution adopted by the National Assembly after an exhaustive debate which resulted in the government policies being given an overwhelming support. baarlamaanka Soomaaliyeed iyo xisbiga wadanka maanta xukunkiisa gacanta ku haya aqlabiyadda lihi SYL labaduba waxay maanta dawladdu siyaasadda ay ku shaqaynayso ee dadkan jiiraanka nahay ku saabsan labaduba raalli bay naga yihiin waana nagu barbartaagan yihiin waxaana taa cadaysay maalintii dhaweyd motionkii baarlamaanka laga baasgareeyay ee aqlabiyad weyn la isku raacay in lagu ayido dawladdu wixii ay qabatay. What is the attitude of the people of Somalia? waa maxay aragtida ay dadka Soomaaliyeed ka qabaan arrintaasi ayuu wariyuhu weydiiyey waxaana uu kaga jawaabay Somalia having a working democracy, the attitude of the Somali people is reflected by their elected representatives in parliament. And therefore the measure of support which parliament has given to my government recently over this matter constitutes a mandate from the people. dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed waxa weeye dad dimuqraadiyad ku dhaqma oo dhaqankooda iyo noloshooduba ay ku xiran ay tahay marka raqabada shacbiga Soomaaliyeed waxay tahay waxa had iyo jeer muraayad u ah oo ay ka muuqataa dadka ay doorteen ee baarlamaanka ku jira kolba waxay baarlamaanka taayid ama maxay hayday diidmo waxay kolba ka cadeeyaan halkaas raqabada shacbiga Soomaaliyeedna ay la socotaa marka baarlamaanku maanta dhaweyd taayidii uu dawladdeeda siiyay waxay ahayd taayid shacbiga Soomaaliyeed ka socota laakiin taayidda wuxuu lagu siiyay waxay ahayd oo si cad waliba loo cadeeyo lagu siiyay waxay ahayd wanaaga iyo walaalnimada aanu doonayno in mid nala garaysay nala aqoonsan yahay oo dadka aanu ka doonaynay maanta jaarkeeni iyaguna intooda ay gacanta soo fidinayaan oo ay walaalnimada iyo wanaaga ku nagula dhibgalayna doonayay inay yihiin ayay ahayd lagu siiyay intii marka dawladdeedani ay xukunka qabatay
waxaanu aad iyo aad intii itaalka ayaanu isaga dhowray inaanu naga soo baxaan hadallo loo tarjuman karo inaanu nahay dal aanay lahayn oo ku duulaana inay naga soo baxaan. waxaasaan la isdiidsin karin. sababta ay cilaaqaadka labada wadan ku xumaadeen waxay ahayd ta'yiidda dowladda Soomaaliyeed ee had iyo jeer ayidsan tahay dadkaas reer NFD raqabadooda ah inay helaan xaq taqliil masiir inay helaan. waxa marka anaga diiladaydu maanta tahay guddidaas saddexda qolo ka dhisan ee maanta la dhisay inay u guntato arrinkaas oo ay iyadu noqoto tii lagu gaadho sidii loogu heli lahaa xal dadkoo dhan raali geliya oo lagu gaadho maxay ahayd heshiis wanaagsan lagaga gaadho arrinkaa sidii mudakaradii ka soo baxday caruusho ka soo baxday ay ku qoray. barnaamijkiina maanta intaas ayuu ku dhan yahay tan iyo kulantideena dambe sida iyo nabadgelyo.